Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Waxaan ku eegi doonaa cashir muhiim ah oo ku saabsan taariikhda chemistry-ga. Ma ogtahay in cilmiga aan maanta u adeegsano daawooyinka, batroolka iyo nolosha maalinlaha ah uu ka soo bilowday alchemists-yaal doonayo in ay birta laga dhigo dahab. Haddii aad rabto inaad ogaato sida uu chemistry-gu u soo maray boqolaal sano ilaa uu noqday cilmi casri ah, dhammayso muuqaalkani. Sidaan hore u sheegnayba, chemistry-ga wuxuu ka soo bilowday alchemists-yaal doonayo in birta ay u beddelaan dahab. Waa su'aal isweydiin leh, alchemists-yaal maxay yihiin? Alchemists-yaal waa dad hore ee ku howlanaa alchemiyada, taasoo ahayd cilmiga hore ee chemistry-ga, balse si sir ah u shaqayn jirtay. Waxay ahaayeen saynisyahano, falsafad yaqaano iyo dabeecad yaqaano isku dhafan oo doonayay inay fahmaan waxyaabaha qarsoon ee nolosha iyo walxaha. Alchemists-yaashii waxay samayn jireen waxaa ka mid ah waxay raadin jireen hab ay biraha caadiga ah ugu beddeli karaan dahab. Waxaa kaloo ay rumaysnaayeen in ay jirto wax qarsoon oo la yiraahdo elixir of life, taasoo ah qofka noloshiisa inuu dheerayn karo. Waxaa kaloo ay rumaysnaayeen ayna isku dayayeen inay helaan xeerka guud ee nolosha iyo jiritaankeeda. Alchemists-yaashii ugu caansanaa waqtiga waxaa ka mid ah Jaabir ibnu Hayaan oo Arab ahaa. Waxaa loo yaqaanay aabbaha alchemiyada. Wuxuu qoray boqolaal buug. Wuxuu sameeyay habab kiimiko ah oo ilaa hadda la isticmaalo, sida distillation, crystallization, sublimation iyo paracelsus. Wuxuu isku daray daawo iyo alchemia. Wuxuu aaminsanaa in jirka bini'aadamku uu la mid yahay kiimiko. Aan soo koobnay, alchemists-yaashii waxay ahaayeen bilowgii chemistry-ga, inkastoo fikradooda qaarkood ay ahayd mid qaldan. Saynisyahanada casriga ah waxay ka faa'iideysteen hababka ay wax u tijaabin jireen, inkastoo ay u isticmaali jireen jidad sir ah iyo falsafad qarsoon. Sidaas darteed, alchemists-yaashii waxay ahaayeen dadkii ugu horreeyay ee isku dayay inay fahmaan walxaha iyo isbeddeladooda, inkastoo aysan haysan saynis sax ah sida maanta. Waxay ahaayeen kuwii bilaabay cilmiga aan hadda ku noolnahay maanta. Markii laga gudbay xilligii alchemiyada, saynisyahanada ayaa bilaabay cilmi tijaabo ku dhisan. Saynisyahan lagu magacaabi jiray Robert Boyle wuxuu qoray buug caan ah oo lagu magacaabo The Skeptical Chemist. Wuxuu buuggaas ku caddeeyay in walxaha lagu falanqayn karo si cilmi ah. Aan isweydiinay, waa maxay walxaha? Walxaha waa erey guud oo loo adeegsado wax kasta oo leh miisaan iyo meel bannaan ku jiro. Luqadda Ingiriiska waxaa lagu dhahaa matter. Waxaa ka mid ah biyo, hawo, dhagax iyo wax kale oo badan. Sidoo kale, saynisyahan kale oo lagu magacaabi jiray Anton Lavoisier isna wuxuu sharaxay in oxygen-ku uu muhiim u yahay gubashada.
wuxuuna abuuray xeer ah maaska lama abuuro lama baabi'iyo wuu kaliya isbedelaa. Xeerkaasoo ah law of conservation of mass. Tani waxay ka dhigan tahay in marka falgal kiimiko dhaca, miisaanka walxaha falgalay ay la mid tahay miisaanka walxaha la helay. Tusaale, haddii aad gubto warqad, waxay isku beddeshaa qiiq, ur, iyo xashiish haray. Inkastoo warqaddii la waayay, walxihii ka dhacay falgalka wali miisaankooda ayaa ah isla kii hore. Qarnigii 19aad ilaa qarnigii 20aad, saynisyahan lagu magacaabi jiray Dmitri Mendeleev wuxuu abuuray periodic table, wuxuuna saadaaliyay curye aan la garan jirin xilligaas, atomyaal aan la garan jirin xilligaas. Waxaa kaloo la sameeyey qarniga qaybo cusub sida organic chemistry, biochemistry, nuclear chemistry. Maanta chemistry-da waxay naga caawisaa daawo, warshado, nadiifinta biyaha, iyo cilmi baarisyo badan. Ugu dambeyn, markii la eego taariikhda dheer uu leeyahay chemistry-ga, waxay caddaynaysaa in cilmi walba uu leeyahay bilow adag, laakiin dadaal iyo cilmi baaris ayaa ka dhigtay mid wax badan naga bedelo. Haddii aad jeceshahay cilmi iyo taariikhda sayniska, subscribe dheh, like saar, comment na ka dhiibo.